السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan walaalayaal meel kasta aad joogtaan kuna soo dhawaada muuqaal cusub. Kalsoonidu waa laf-dhabarta aadanaha uu leeyahay. Qofka kalsooni ku qabin naftiisa wuxuu ku noolaanayaa nolol murugo leh. Waxaa taa ka duwan qofka naftiisa kalsooni ku qaba, aragtidiisa nololeed waa rajo fiican. Marka waxaa laga maarmaan ah in loo abuuro kalsoonida carruurteena tan iyo carruurnimada si ay ugu koraan oo ula weynaadaan. Maxaa yeelay carruurtu waa kuwa dhisa mustaqbalka. Waxaan ku siin doonaa tilmaamo kaa caawinaya abuurista kalsoonida carruurta. Qodobka koowaad, ilmuhu waxaa saameeya waalidkiis. Sidaa darteed, waalidku waa inay u muuqdaan ilmaha inay isku kalsoon yihiin. Sidoo kale waa inay qarsadaan cabsida iyo walwalka ku saabsan carruurta, maxaa yeelay dareenkaasi si toos ah ayuu ilmaha u saameeyaa. Qodobka labaad, sida habboon ee loola dhaqmo ilmaha ayaa waxay ka dhigaysaa inuu dareemo kalsooni. Sidaa darteed, waalidku waa inay ka fogaadaan inay garaacaan ubadka una ciqaabaan gafka ugu horeeya, iyo inaan ilmaha lagu canaanan dadka hortooda. Sababta oo ah taa waxay ka caraysiinaysaa ilmaha waxayna u keenaysaa inuu lumiyo kalsoonidii uu isku qabay. Qodobka saddexaad, ilmuhu wuxuu xaq u leeyahay inuu muujiyo aragtidiisa. Waxaa habboon waalidkana inuu dhagaysto oo hadalka ka kala jarin, maxaa yeelay muujinta dareenkiisa waxay gacan ka geysanaysaa abuuritaanka kalsoonida canuga. Dhagayso canugaaga oo si wanaagsan ugu jawaab fikradihiisa, iskuna day inaad saxdo waxa ka qaldama si tartiib ah oo macquul-gal ah. Qodobka afaraad, u oggolow canugaaga inuu yeesho xorriyad uu isku tijaabiyo, maxaa yeelay waayo-aragnimadu waxay ka caawinaysaa inuu kala sooco waxa qaladka iyo waxa saxda ah. Waayo-aragnimadu waxay bari doontaa kalsoonida naftiisa, hana u diidin xorriyaddaasi. Qodobka shanaad, canuga ha sameeyo howlaha qaar. Taasi waxay dareensiin doontaa inuu yahay ilmo miyir qaba, waxayna kordhin doontaa kalsoonidiisa. Shaqadu waxay ilmuhu baraysaa sida mas'uuliyadda loo qaado. Tusaale ahaan, weydii inuu ilaalinayo nadaafadda qolkiisa, ama weydii inuu kaa caawiyo diyaarinta quraacda iyo cashada. Qodobka lixaad, ku taageer canugaaga anshaxa, kuna dhiirigeli abaalmarin marka uu guto waajibaadkiisa. Taageeradaada dhanka moralka ah waxay ka caawin doontaa inay saacido kalsoonida naftiisa. Qodobka toddobaad, bar canugaaga inuu la xiriiro dadka, kuna dhiirigeli inuu soo dhaweeyo martida, kuna ammaan hortooda. Ku dhiirigeli inuu dhexgalo carruurta la da'da ah. Haddii aysan jirin wax aad uga baqayso, wuxuu dareemi doonaa kalsooni iyo in la jecel yahay. Qodobka siddeedaad, oo ah midka ugu muhiimsan, yaree saacadaha ilmuhu ku fadhiyo telefishinka hortiisa. U deji waqti uu daawado telefishinka, kuna dhiirigeli waqtiga iyo qiimaha uu leeyahay, taasoo sii wanaajin doonta shakhsiyadda ilmaha, isla markaana kordhin doonta kalsoonida naftiisa. Daawadaha sharafta leh, ilmuhu wuxuu kasban karaa kalsooni. Sidaa darteed, isku day inaad isticmaasho tilmaamaha aan ku siiyey si canugaagu uu u helo kalsooni. Ugu dambeyntii, ma haysaa talooyin kale oo gacan ka geysan kara abuuritaanka kalsoonida canuga? Waxaan rajaynayaa haddii aad hayso inaad hoos noogu reebi doonto. Aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. La wadaag walaalaha kale. Inta iyo mid kale aan ku kulmi doono, waxaan idin leeyahay Ilaahay ha idin barakeeyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.